السلام عليكم maanta waxa weeye horta waa markaa waa islaamay maanta 10 yar ayaynu qaadanayna oo ku saabsan qaabka looga faa'iideysan lahaa cryptocurrency bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم waa idin salaamay dhamaan meel baan joogaa xogaa buuqa marka codku yimkin inuu soo waadax noqon laakiin waxaan tusayaa maanta qaabka looga faa'iideysan lahaa cryptocurrency qofka coin haysta hadda mesela account kan oo kale coin baa ku jira iyo cash waa USDT dollar weeye cash la qiimaha 9600 xogaa okay maxaan sababtan cash ka u daay waa maxay waxaan bitcoin ku markuu cirka tagay ayaan gaday hadda cryptocurrency uu soo degay hadda eegtid market ka imka xumaraya 9600 iyo 920 uu soo degay ethereum uu soo degay kullu hadda markaad ka eegtid bitcoin ka mesela lacagtan ku jirta US dollar ka haddaan imika yiraahdo buy iibso bitcoin ratekiisu hadda wuxuu marayaa intaas uu marayaa intana cash waan ka hayaa haddaan 100% tiraahdo waxba bitcoin full laakiin awal halka waxaan geliyay 0.9 bitcoin macnaha $1000 ayaa kordhay aan hadda dib u noqono order history wadeegaysaa order history bitcoin waxaan iibiyay isagoo ah 10499 tamam 0.9 bay ahayd iminkana wuxuu marayaa 9600 waaragta hada kan oo kale 10000 ayaa soo fuulay waa la sugi karaa haduu soo daadago waxa dhici karta inuu noqdo مثلا example baan siinayaa iska dheh okay iska dheh wuxuu noqday 8500 haddaan intaa iska iibiyo oo xusinaya 1.136 haddaan galo google galo oo aan iraahdo 1.137 iska madhe BTC USD dollar u bedelo wuxuu noqonayaa 10960 يعني waxaa ku kordhay subhanallah wallahi wax yar ma aha yani xeer ma aha marka hada soo aragtaan crypto way soo degaysaa idinka marketkii way soo degaysaa waxa laga yaabaa inuu sideed ku gaaro Allahu a'lam ilaahay baa ethereum wada aragtaan kadalik marka qaabkaas weeye qaabka looga faa'iideysto cryptocurrency marka soo degtana waa la iibsadaa markii ka cudurna waa la gadaa waa market suuq caadi weeye okay waan soo noqday qaybtii kale eegnaa inaan iibino bitcoin ka soo degay qiimihiisu aad u soo degay marka waxaan isleeyahay xabadda iska iibi sel ayaan ku qorayaa aan reedkii hore masaxo sel baan niri waxaan rabaa 0.903 oo bitcoin sel baan niri insufficient balance bay ugu yiri qalab baan sameeyey ama buy sorry buy sel ma waa buy لأنه بيتكوين ما يستاهل باي وياه باي 0.903 8733 بويري اوكي وانت على قيمه باي بسم الله توكلنا على الله واي بني دواء كالكدا نيغنو ولو سوغيا ستيل ويتنج واحد بيتكوين ولي ما هينو واحد بيتكوين ولي ما هينو وسوغينا ولي وسوغيا اوردركي واديبا waa ka orderkii waqa still wasuugaya xogaa buu kor u kacay intii aan doonay inuu soo daadago iga cararay marka way sugaya wax dhibaato ma aha assalaamu calaykum qaybtii ugu dambeysay waa duubay alxamdulillah rateekii waa soo degay waa kaas USDT 940 dollar baan ka qaatay marka waan ka ribxay bitcoin kiina intii aan gaday waa intaas way soo noqotay ma sha Allah tabaarak Allah waa taas 0.902 way soo noqotay bas abada maanta
hadhow taxbadda bitcoin-ka ah anytime hadduu 20 kun gaadho waa 20 kun marka qaabkaas looga faa'iidaystaa cryptocurrency-ga جزاكم الله خير السلام عليكم السلام عليكم مركا هذا مثلا لعقتا US دولار كا كجرتا 900 laga rabxay meesha waxa ku sameyn kartaa waxaad ku iibsan kartaa watch jaban oo kale oo qiimahoodu soo kici doono kuwa mustaqbalka kuwa aad u fiican ee soo kale ama Ethereum hoos u dhaca ka iibsan kartaa dhowr xabo Ripple waa gadan kartaa Bitcoin waa ku celin kartaa soo daadigay maarta soo daadigay dana hoos waa ka soo gadan kartaa mar kale marka way kacaya marka kor u kacana way iibin kartaa markiiba marka hoos u dagaana hoos ka iibsanaysa marka waa ka qaab insha Allah marka waad ku sameyn kartaa wax kasta lacagta dad u baahan tahay lacagta waad la soo bixi kartaa dollar kan haddaad u baahan tahay waad la soo bixi kartaa oo bangigaaga ku soo wareegsan kartaa marka waa very simple waxaad uga leedahay oo exchange-ka adduunka la shaqeeyo weeye ma sha Allah